waadin salaamida odayaal meel kastoo dunidana aad ka joogtaan maalin kale iyo muuqaal kale cusub halkan waa channelkeena hoyga fanka iyo suugaanta ee xogta fanka maanta daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa natiijada hordhaca ah ee baaritaanka lagu sameeyay caafimaad wariye Cabdimaalik Coldoon kaasoo xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ku xiran waqti hadda laga joogo muddo 2 sano markii ciidamada ammaanku ay xireen warar iyo macluumaadyo dhowrkii saac soo baxaya sheegaya in wariyaha uu la xanuunsanayay xaaladda xanuunka COVID-19 oo xabsiga kula dhacay xaaladiisu caafimaad oo qoyskiisu aad ay kaga deerinayeen laakiin baaritaano lagu sameeyay caafimaad ayaa waxaa soo baxay natiijo hordhac ah oo ku aadan xanuunka wariyaha uu qabay iyo baaritaanada la sameeyay maanta ayaan wax badan aan ku eegina muuqaalkeena xaaladiisa caafimaad ee Cabdimaalik Muuse Coldoon xanuunka haya baaritaanada laga qaaday dhicaanada dhiiga ilaa hadda waxa la ogaaday dhammaan warbixino ku saabsan ayaan wax badan aan ka eegi doonaa badqabka Cabdimaalik intaan gudagelin aan ku xasuusiyo mar kale daawade haddii aad ka mid tahay saaxiibada ku xiran channelkeena ku mahadsan haddii aad tahay saaxiibada ku cusubna ku soo dhawow halkan waa hoyga fanka iyo suugaanta waa channel u gaar arrimaha fanka suugaanta iyo sidoo kale shakhsiyaadka caanka ah oo aan soo qaadano mararka qaar marxaladaha ay ku sugan yihiin waa hagaag aan ka hormaro xaaladda wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa shalay laga qaaday dhicaanada si loo hubiyo baaritaankiisa caafimaad inuu ku dhacay xanuunka halista badan ee coronavirus ama COVID-19 iyadoo lagu arkay calaamado kamid ah xanuunkan kuwa lagu yaqaan sida qandho qufac joogto ah iyo sidoo kale xaaladiisa oo aad u xumeed sidaan xogta ku helina channelkeena xogta fanka baaristii shalay la sameeyay wariye Cabdimaalik Coldoon natiijada hordhaca ah ee soo baxday durba channelkeena helay ayaa waxay sheegaysaa in xaaladiisu ay tahay mid aad u xun marka loo eego wariyaha iyo xabsiga oo muddada dheer ku jiray wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa baaritaanka koowaad lagu xaqiijiyay inuu soo qabin xanuunka balse uu qabo cudurro kale oo aan la aqoonin kuwaasoo mararka qaar neefta ku dhijinaysa Coldoon sida uu channelkeena xogta fanka u xaqiijiyay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Somaliland baaritaanada natiijada soo baxday ayaa waxaa lagu sameeyay isbitaalka weyn magaalada Hargeysa inkastoo dhicaanada loo sii diray dalka dibadiisa si loo hubiyo natiijada soo bixi karta baaritaanada hordhaca ah ayaa xaqiijinaya inuusan Coldoon qabin xanuunka gudaha Somaliland iyo Soomaaliya ku sii faafaya ee coronavirus sidaan xogta ku helnana sarkaal kamid ah dawladda ayaana xogta inoo sheegay waxa uu sheegay in dhaqaatiirtii shalay ku booqatay xabsiga magaalada Hargeysa ee wariye Coldoon waxay sheegeen in laga dheehan karo in xanuun badan uu ka muuqanayo wariyaha xaaladiisuna ay mid aad u xanuun badan waxay sidoo kale ay sheegeen inay jirto tabardarro baahsan oo wariyuhu soo wajahday midaasna ay sabab u tahay xanuunkan ilaa haddana aan si rasmi ah loo xaqiijin karin inuu hoos u dhacay shakiga ah in wariye Coldoon uu ku dhacay xanuunka COVID-19 siyaasiyiin iyo wariyaal badan ayaa dalbanaya in xabsiga laga sii daayo Cabdimaalik Coldoon iyagoo waliba marar kala duwan dalabkaasi toos ah ugu gudbiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu u muuqdaa si madaxweynuhu mid uu ka dhaga adeegayo fulinta dalabyada badan ee kaga imaanaya siyaasiyiinta wariyaasha caanka iyo waliba shakhsiyaadka kale si loo siiyo xorriyadda samafalaha arrimaha bini'aadanimada Coldoon kaasoo waqti dheer xabsiga qaadanaya inkastoo maxkamad ku taal magaalada Hargeysa ay muddo 4 sano ay xabsi ay ku xukuntay ayaa hadda wariye Coldoon wuxuu xabsi ku jiraa wax ka badan sanad iyo bar oo ciidamada ammaanku ay xabsiga ku hayaan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaana xaqiijisay goordhow in wariyaha Coldoon natiijadiisa baaritaan dibadda loo qaaday markay ay soo gaarto la xaqiijin doono in xanuunka COVID-19 uu la xanuunsanayo laakiin wasaaradda ayaa sheegtay in dhicaanada iyo dhiigga laga qaaday wariyaha gudaha Somaliland marka lagu baaray ay muujinayaan oo qurac inuusan xanuunkan qabin laakiin ay jiraan xanuunada kale ayaan la ogeyn noocyada ay yihiin waxaase walwal badan laga muujinaya xaaladda badqabka wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon kaasoo gacanta maamulka ku jira wariyaha ayaana markii hore loo haystay arrimo ku aadan madax banaanida iyo waliba qadiyada Somaliland taasoo keentay in xabsiga loo dhaadhiciyo
cabdimaalig muuse coldoon ayaa inta badan waqtigiisa ku qaadanaya markan xabsiga Somaliland tiro 3 jeer ayuu tiro 3 jeer ay ciidamada booliisku ay xireen mar loo haystay safar qarsoon uu ku tagay magaalada Muqdisho oo waqti uu ku qaatay kadibna uu ku laabtay magaalada uu ku dhashay Boorama taasoo keentay ciidamada ammaanku ay xiraan isla asagoo magaalada Boorama ku sugan iyo ciidamada ammaanku ay xireen 2016 markaas oo la sheegay in qadiyada Soomaaliya halkaas uu geeyay markale iyo ciidamada ammaanka ee Somaliland xireen 2018 markaas oo ciidamada xabsiga u dhaadhiciyeen ilaa hadda wali xabsiga uu ku jira wariye cabdimaalig muuse coldoon xaaladiisa ayaana hadda aad loogu deerinayaa gaar ahaan caafimaadkiisa oo xubno kamid ah qoyskiisu ay sheegayaan in walwal badan ay ka muujinayaan badqabka cabdimaalig waxaana aad loogu baqayaa in xanuunka coronavirus uu ku haleeyo gudaha xabsiga xanuunka coronavirus marka loo eego Soomaaliya guud ahaan xanuunkan ayaa mid uu ku sii baahayo Soomaaliya ayaa hogaaminaysa tirada dhimashada xanuunkan bariga Afrika oo dhan marka loo eego bariga Afrika waxaa tirada dhimashada hogaaminaysa Soomaaliya oo gaartay ilaa 28 qof tirada dhimashada wadanka labaad ku sii xiga ayaa ah wadanka Suudaan oo tirada dhimashada maraysa 27 ruux marka loo eego xanuunkan ayaa mid adduunyada dhan si baan u saameeyay laakiin bariga Afrika marka loo eego wadamada sida baan u saameeyay waxa kamid ah Soomaaliya, Suudaan, Djibouti, Ethiopia oo meelaha ugu badan xanuunkan laga diiwaan galiyay Ethiopia ayaa kiisaskeeda Kenya aad u yiriin marka loo eego ama la barbar dhigo wadamada Suudaan, Soomaaliya iyo Djibouti kiisaska laga diiwaan galiyay ayaa kor u dhaafaya 1800 qof inkastoo dhimashada Djibouti ay xanuunkan u yahay mid aad u yar laakiin Soomaaliya kiisaska laga diiwaan galiyay xanuunka COVID-19 ee warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka ay soo saartay shalay waxay ku shaacisay xanuunkan uu gaarayo in ka badan 528 qof halka tirada dhimashadana ay marayso 28 qof tirada ka bogsatay xanuunkan ayaa gaartay 6 qof oo qura marka loo eego xaaladda xanuunkan ayaa aad u sii kordhaya waxayna tani ka dhigantahay in Soomaaliya guud ahaan bariga Afrika ay hogaaminayso xanuunkan iyo waliba tirada dhimashada inkastoo Djibouti qodeeda kiisaska xanuunkan laga diiwaan galiyay ay gaarayaan ilaa 1800 ay hogaaminayso tirada diiwaan gelinta laakiin dhimashada marka loo eego bariga Afrika oo dhan Soomaaliya ayaa hoggaanka u haysa waxaase dad badan oo ku sugan caasimada dalka ee Muqdisho iyo gobolada ay qabaan in tirada hadda dawladda ay soo bandhigtay 28 mooye ay jiraan dad badan oo xanuunadan u dhimanaya kuwaas oo la iska aasayo aan wax badan aan laga ogeyn dadka u dhintay xanuunka coronavirus ayaa la sheegay in gudaha caasimadu ay yihiin kuwa aad u sii kordhaya marka loo eego warbixino badan ay wariyaasha caasimadu ay ka diyaariyeen qabuuraha oo goobaha dadka lagu aaso ayaa waxaa lagu ogaaday in maalintii markay ugu yartahay la aaso 60 ilaa 70 qof waa halka maalin caasimada dalka Muqdisho taasoo dadka ku nool caasimada walwal badan ay ku abuurtay dadkaas tirada badan ee maalin walba dhimanaya oo aan la ogeyn baraha bulshada gaar ahaan aalada Facebook ayaa dhowrkii cisho ugu dambeeyay waxa ayna qabsatay tacsida dhambaalada tacsida ah dadku ay isku dirayaan taasoo keentay walwalka tirada dhimashada in aad u sii kordhayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer oo hore shaacisay in xanuunkan uu ku sii fidayo gudaha caasimada iyo gobolada dalka loona baahan yahay in la xakameeyo dadka da'da ah ama waayeelada ee qaba xanuunada sida dhiigkarka, sonkorta, gastriga iyo waliba xanuunada kale ee aad ku dhib badan marka loo eego xaaladda Soomaaliya ayaa ah mid aad u sii xumaanaysa tan iyo markii Soomaaliya laga diiwaan galiyay xanuunadan COVID-19 meelaha xanuunadan laga diiwaan galiyay waxa ugu badan gobolka Banaadir oo xanuunkan si baan u hareeray Puntland ayaa qayb ka Koonfur Galbeed oo ilaa 4 qof shalay laga diiwaan galiyay Jubbaland ayaa ina qayb ka meelaha ugu badan xanuunkan laga diiwaan galiyay oo dadka ku dhacay xanuunkan Jubbaland ay aad u sii kordhayeen ilaa 16 qof ay marayaan Hirshabelle ilaa hadda waa uu yaryahay xanuunka kiisaska laga keenay inkastoo la sheegayo badi maadaama xog badan aan laga helin Hirshabelle maadaama dhaxdooda isqa qabsi iyo khilaaf badan oo ka jira ay sababtay in xogta Hirshabelle ay noqoto mid aad u qarsoon hagaaga saaxiibada ku xiran channelkeena hoyga fanka iyo sugaantana aan la wadaagayna warbixinteena maanta ee ku aadan xaaladda caafimaad ee samafada Coldoon oo aad u xanuunsanaya lagana cabsi qabo in laga helo xanuunka COVID-19 oo aan ku eegino marxaladihiisa iyo waqtigiisa adka iyo guud ahaanba xanuunkan sida bariga Afrika iyo Soomaaliya buu saameeyay halkaan ku soo gabagabeynaya
waxaa naga xasuusina daawada haddii aad tahay saaxiibo ku cusub channelkeena kusoo biir subscribe inoo dheh gambaleelkaasna inoo taabo waxay kaa saacidaysaa helista macluumaadyada iyo weliba wararkeena kale ee gaarka muuqaalkeena maanta saaxiib yaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynay mid lamida nabadgelyo